السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شرفت رسول الله دكتور هذا برنامج بنولا شدبتا shalay waxaan diyaarsaday wad ogeydeen biyo cabitaan ah oo u fiican keliya xanuunka kolestaroolka dhiigkarka sokorta wadna xanuunka yani guud ahaan caafimaadka u fiican oo dhakhtariinta ku taliyeen marka aniga saan u bilaabay alxamdulilah keliyahayda kore usoo kaceen waxyar sokortidayda waaba baxdayba alxamdulilah kolestaroolnaasna waaba baxayba marka qof kastoo soomaali ah waxaan rabaa inaan la qaybsado adigana usii gudbi walaalaha sharafta laho soomaaliyeed oo ama xanuunsan ama xanuunsanaynba dadka markiis waxay u malaynayaan biyaha in lagu targa dadka xanuunsan bis marka haddaad walaxa keliya xanuun qabtid cusba iyo saliid iyo sokor iyo qaxwo iyo baasta iyo halkaa iska dhig sidoodaba insha allahu tacaala caanana halkaa iska dhig iyo moos iyo waxyaalaha potassium ku badan yihiin oo dhammaan halkaa iska dhig insha allahu tacaala keliyahaada ama meeshooday joogaan sideedoo kale ha liiteena meeshooday joogayaan ama koray ku kacayaan insha allah marka aniga waxyar umay kor u kaceen hadda 29 ay marayaan GFR ka lagu cabiro laakiin mar hore markay dhakhtarka ii sheegay 2020 24 ay marayeen 24 ay marayeen hoosna u socdeen weliba dhakhtarka wuxuu yahay wuxuu igu yiri your kidneys are deteriorating very soon waa dhacayaan markaasaan bilaabay biyahan waxaas oo dhan insha allah biyahan hadda intusayaa biyihii walaalaha sharafta waa kuwaas hadrijeerka kala soo baxay marka insha allahu tacaala waxaan furayaa tartiibto biyihii waa kuwaas wax allaala wixii guruf ahay wax allaala wixii mataqaana ku kuusnahay dhamaala hoosay u degeen marka tartiibta waa qaadanayaa biyahan walaalaha sharafta leh marka intaan ku shubanaya koobkaas u buux marka koobkaas u buux waxaan shubanayaa kuwa daboolanaya ayagana meeshaan dhiganaya hadhowta frinjeerkan ku celinaya insha allah marka koobkan wax kale ma cunin afkaada adoo wax kale saarinaa la rabaa quraacay waxaas kule adoon taabanin dhakhtaray ku talinayaan inaa cabti calooshaadoo eber ah hadda waa cabayaa laakiin intaan cabin ka hor dad muslimiin baa naanagu diinteena islaamka wax kasta saldhig u ah waxaan ku tufayaa todoba faataxa iyo waxaan ku tufayaa as'alullah alcadiim rab alcarshi alcadiim an yashfani yaan ku tufayaa waa bilaabaya bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين walaalaha sharafta leh todobadii faatax waa dhameeyey hadda waxaan bilaabay oon dhameeyey ducadii as'alullaha alcadiim rab alcarshi alcadiim an yashfiyanii yani ayadana ducadaasna 7 jeer aan dhameeyey marka waxaan kaaga digayaa fadlan walaalaha soomaaliyeed maskaxdaada isticmaal ilaah baa caqli ku siiyey dadka ku dhahaya internetkan qur-aankaaga tufayaa ama haddii kale meesha fariisa tahliilaan hayaa oon tufayaa adigana soo qaado mataqaanaa microphone weyn baa ii yeela oo jiniyaha iyo shaydhaanka iyo iloo dhammaadaan bixiyaa centerka igu umaaw lacagkaada kunkaada dollar ama $50 hore u soo qaado war waxaasoo dhammaale waxba kama jiraan walaalaha sharafta leh nimankaas kuwii asbaaraha dhigan jiray oo runtii mooryaanta ahay ayaga waxba isma dhaamaan markaan war qur-aanka waxaan u bixiyaa ruqya business baan u bixiyay ruqya business aniga markaan iskuul eegow qur-aanka waa tufaa macallin dugsi baan nahay qur-aanka waa tufaa maaha qur-aanka inaan diidana qur-aanka dhaqankeena hore usoo noqo gurigaada uu soo yeera culummada sida caadiga ahayd qur-aanka ku tufeena ama qof fiican oo saalax aad leedahay ilaahay waa u dhow yahay qur-aanka isaar dheh mataqaan haddii kale masaajidaha tag xalaqaa jirto dadka lagu tufa sida masaajidka nagala kolka masaajid quba masaajid iraajir oo xaafadaanada hays ku yaala firiyaa lagugu saarayaa markaan qur-aanka lama diidana laakiin ruqya business aa la diidan yahay ruqya business ayaa la diidan yahay laakiin ruqya sharciya lama diidano markaan baryahan dambe waxaa la facebooka lagaa soo gelayaa iyo telefoonka markaas bismillah markaas halow markaas ku soo galay war fiiri walaalkay walaashay waxaan ku weydiiyey gaalada caddaanka ayaa ka gaalsan yaa ilaahay ka kufrisan ayaga jin iyo balaayim ay sheegaan haye
dadka taajiriinta ah jinni iyo balaayo ma ay galaan runtii oo dad badan oo wanaagsan baa ka hadla arrinta oo dhahay war wax laba kama jiraan sheekh macalin abshir ah ka mid ah oo xamar jooga oo dad badan centerka kaga digi oo dhahay dad badan u tageen jinniya ay kasoo qaadeen waaba kusoo xanuunsaneenba waxaan aad ugu xumahay weliba dadka wadaadada gabdhaha wadaadada inay ugu badan yihiin haye sheekh rusheya loo tagaa biyaas qaadanaa yani $1 jeebka loogu shubaa sharar biyaas kugu shubaa war aday sidayd oo kale ayarkumaa soo qaadato koobkaada oo dhakhtariinka weliba dhakhtariinta ay ku dardaarmeen jinjarka iyo mataqaana sanjabiirka inaa isku darsado iyo cucumberka ah taa faataxada isku tuftid qur-aanka ku tuftid ayarku adimaa cabtid war wacalallaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniina ilaahay haddaad tala saartaan mu'miniin haddaad tihiin ilahi waa in ku filiya xaggay kaa martay walaalkay walaashay haye alaysa allaahu bikaafin cabdah ilaahay miyuusan adduunkiisa ku filin xaggay kaa martay markaan wadaad yaroo meel furtay oo dhahay ani ruqyan aan akhriyaa waraaqa liflad qaybinaya markaad aaminaysid war ilaahaygaada ka baqoo waa kaas ani waa ku bogsooday alxamdulilah sokorta waa iga baxday oo kolosrog waa baxay oo wadna waa ii bogsoodeen oo gastriga waa baxay hadda waxa bisoo ahay waxaa waaye dhiikarkiio kontroolkiisa aan raba inaan ilaaliyo iyo keliyahiyo liito haddana ay kor usoo kaceen alxamdulilah ma fahanteen markaan 2020gina yani waxa weye dhakhtarka woonin buu isay waa kan faataxa iyo waxaan isku akhriyaa iyo habeenkani ma masaxda qul acuudu bilnaas qul acuudu bilfalaq qul huwalle anoon isku tufin masaxda marka ilaahaygaada aamino daawo adiga gacantaada ku hay ilaahay ka sugo adaa gacantaada ku hay baaraka allahu fiikum xadiidka nabigan kusoo gabagabaynaa wa ina linafsika calayka xaqa uu yiri nabi sal alay slam naftaada xaq bay kule xaqeeda sii wal biyo fiican cab oo cusbo iyo saliid iyo sokor biyaha soo badsa keliya xanuun daa qabta anan ka ilmaamin biyaha waa kuwaas gurigaada hadaa keliya xanuun qabtay biyahay ka dhammaanin wajcalnaa min almaai kula shayin xayin afalaa yu'minuuna ilaahi subxana biyaha waa nolol keliyahay nooleeyaan markaan cab marka insha allahu tacaala haddana waan ku dhufanaya waa kaas koobkii bismi illahi raxmaan raxiim maasha allah بسم الله موجودة عندي ميديك تيجو مركان كاميرا داوين هم مليين بدحت جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ودينا الله عافية بارك الله فيكم وحلال وحي حنون سنة عفمات دقدق الله سي وعفمات من الله وزيادي حانا إلاليا عفمات وإلالين كرتا جيمك آد إكسايس كبدا جيكني تشيبس جوجي weliba dadka taksiyaashan u digaya iyo basaska saaran iyo kuwa saaran maxay mataqaana traaga maraykanka iyo halays ilaaliyo fadhiga laftiisa waa khatar laakiin exercise-kaada iyo hadda ku dadaasho cuntadaada waxba kaama qaadaya fadhiga baarakallahu fiikum waa odaygii 60 jirkaayo malkamowdka carooyin dhahaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu